Assalaamu calaykum caruurey. Sheeko xiise leh ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa sheekadii waraabaha iyo dabacada. Sidan ayaynu ku bilaabanaysaa. Mar ayaa waxaa jiri jirtay dabaco ari tiro badan ku xuli jirtay dad meel baadiye deganaa. Arigaas iskugu jiray riyo iyo ida tiro badan. Maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in dadkii tuulada degan ay meel iskugu imaadeen. Waxayna ka wada hadleen sidii dabacada dhibka badan ku haysa ay wax ugu qaban lahaayeen. Dadka ay waxay talo ku gaareen inay u dabaan xargo iyo god si uu ugu dhaco. Dabacadii ayaa waxay ku dhacday dabkii loo dabay. Dadkii ayaa marka waxay ku xireen dabacadii geed jiridiisa si loogu aarsado dhibaatadii u geysatay arigii iyo idihii tirada badna ay ka cuntay si ay ugu aaragoostaan. Kadibna waxay go'aan ku gaareen in ay dab ku ridaan. Dadkii ayaa waxay soo gureen qoryo tiro badan waxayna ku shideen god ay ku tuureen dab ayna ku shideen. Godkaas oo ay ka faageen meel u dhowaa meesha dabacada ay ku xirneed geedka dhankiisa ah. Markaas ayaa waxay yiraahdeen ilaa dabkan diyaar uu ka noqonayo aan iska baxno kadibna aan soo laabano markii dabka si fiican u huro oo diyaar u noqdo si aan ugu tuurno dabacada. Markii ay meeshii ka dhaqaaqeen ayaa meeshii waxaa soo maray waraabe aad iyo aad u baahan. Waraabihii ayaa ku soo orday qayladii dabacada isagoo u malaynayay in dabacada ay dilatay xayawaan kale oo is yiri ka cun oo ka xoog xayawaankaas ay dilatay maadaama aad gaajaysan tahay. Markuu meeshii yimid ayuu aad u yaabay. Wuxuuna ku yiri dabaco yaa kugu xiray geedka oo maxaa dhacay. Dabacadii ay waxay ugu jawaabtay waxa meeshaan igu xiray adeerkayga. Waraabihii ayaa wuxuu ugu jawaabay maxay tahay sababta adeerkaa uu kugu xiray geedka. Dabacadii ayaa waxay ku jawaabtay adeerkay aad ayuu ii jecel yahay. Wuxuu arkay inaan caato ahay. Markaas wuxuu ii qalay hal ido aad u weyn oo caylan. Dabkaas oo meeshaas uu ku shidayna wuxuu qorshihiisu yahay in idaha uu ii qalay uu si fiican iigu dubo. Anigana waa diidanahay sababtoo ah baahi ma i hayso. Waana nacbahay hilibka idaha. Laakiin adeerkayga ma iga yeelayo. Si walba haddaan waxa ugu sheegay. Waxaan u sheegay mar walba hilibka idaha aan cuno in caloosha xataa ay xanuunto. Mar walba oo aan u sheegane inay arrintaas iyo dhibaataas i haystana waa iga diida. Wuxuu igu xiraa geedkan isagoo igu qasbaya in aan cuno hilibkan idaha. Waraabihii ayaa aad iyo aad u yaabay. Afkiisan dherer ka soo batay sababtoo ah waraabo wuxuu aad u jecel yahay hilibka iyo baruurta. Markaasaa wuxuu yiri aniga ayaa xariga kaa furaya ee aniga geedka igu xir hilibkaas aan ka dhargee si aan u cuno hilibkaas adigana aad u baxdo ugu nabadgashid adeerkaaga. Markii ay dadkii meesha ku soo laabteen ayaa waxay arkeen meesha dabacada ku xirneed oo waraabihii uu ku xiran yahay. Dadkii ayaa aad u yaabay. Dabkiina si fiican ayuu meesha ugu holcay. Waxay weydiiyeen waraabihii oo aabay dabacadii meesha ku xirneed. Waraabihii ayaa ugu jawaabay aniga ayaa xariga ka furay oo waa iska baxday. Dadkii ayaa weydiiyey markaas maxaad ugu furtay xarigii ay ku xirneed dabacada. Waraabi ayaa wuxuu yiri dabacada ayaa waxay ii sheegtay in aysan gaajo haynin oo ay nacab tahay hilibka adeerkeed uu rabay inuu u dubo. Anigana gaajo ayaan la bakhtin rabaa. Markaasaa waxaan isku bedelinay in ayadan ay iska sii baxdo anigana geedka la igu xiro si aan baruurta ugu dhargo oo idaha. Dadkii ayaa ku soo orday oo waraabihii intay soo qabteen dabka ku tuuray. Waraabihiina sidaas ayuu ugu dhintay oo hunguri xumo iyo duqarnimada halkaas ay ku dishay. Marka waxa aan ka baranayna sheekadan caruurta ee waxay tahay khiyaanada dabacada iyo inay jiraan dad sida dabacada oo kale u dhagar badan isticmaalaya caqligood si xun ay ku gaaraan danahooda gaarka ah. Tan kale waxay tilmaamaysaa duqarnimada oo waraabaha taasoo ayaan tilmaami kartaa in dadka qaar ay u dhaqmaan sida duqarnimada waraabaha oo kale oo ay tahay in la iska ilaaliyo dhaqanka xun ee hunguri xumada ah. Sidoo kalena in caqli la yeesho oo haddii dhibaato ay kula soo kororto in caqli la isticmaalo sida uu caqli badan tahay dabacada oo kale. Caruurey sheekadan halkaas ay noogu eg tahay ilaa sheekada aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.